lafta garan way fiirinaya xusleeyahay reemuduka oo xadiis dalishanaya nin ogaadeena yaa nin u waramay marka waa sheekaysteen wuxuu yiri wadaadu ahaay ninka hadduu qamiis uu dhinto oo jimca uu qabriga u hoydo waa ehli jannu dhahay kii ogaadeenka waa soo baaday inaaba waa sidaan maaganahay buu yiri sida aan rabo inaan u dhinto waayay yiri jannaan rabaay dadka reer Puntland waxaan uga hambalyeeynaa soo celinta sidoo hore u sheegay madaxweyne qoorqoor madaxweyne mar la doortay in mar labaad la doortay dadka kale oo ay ugu horeeyaan reer koonfur galbeedna sida ninka ogaadeen oo kale waxaa la rabaa inay bartaan inay madaxweynahooda ayagana soo celiyaan marka waa sidaan maaganahay madaxweyne Cabdicasiis lafta garan wuxuu yiri waa sidaan u dhima rabo yiri ninka odaga hay waa sidaan rabno in nin madaxweyne ah mar labaad la doorto khibrad iyo way aragnimo uma ka soo kordhaysa horta ceeb ma laha Soomaaliduna waxaan u maleynayaa taas in badan oo kamid aan la isku haysan sida la isu dooran leeyahay aan hagaajin hadii alla yiraahdo ma shalay waxa ka dhacay baarlamaankii federaalka ahaa oo inuu laba aqal ahaa inuu kala shaqeeyo ay ahayd in la isku milay waxaan fiicnayna meesha ka soo baxayna adduunkana wajixun ka u muuqday waxba aanu shadiya inta ka badan ku dhufan maayo laakiin hal fariin aan diraya wadana xasan sheekh madaxweyne ha saxiixin wixii halka ka soo baxay Soomaaliya waxaan rabaa inaan u sheego dastuurka waqti uma dhinna geed ku yaala hadii ay bislaadaan ee waqtiga ay bislaadaan ay ku habbooneyd aan inta la gurto aan la quudanin mirahaasi dhulku ku dhacwaan halaaba dastuurku waa bislaaday dood nooguma dhinna options nooguma dhinna wax nooguma dhinna xamar waxa la yiraahdaa caadi iska dhiga maanta kale waa la isla hadlaa marka anigu caadi baan ahay dina caadi iska dhiga hadii la yiraahdo dabaraan iyo tiimkiisa waxaan ka dareemayaa waa isheeleen aan sheega anigu hadii ilaahay ka dhigo anigu waxaan ahay magacayga la yiraahdaa Cabdulqaadir Axmed Aw Cali waxaan ahay hogaamiyaha maamulka SSC Khaatumo oo ah maamulka meel gaara oo ka arrimiya deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka tirsan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Saciidna si gaar waxaan leeyahay madaxweyne iskool wada maahide wixii aad carrada ku soo martay waa ognahay hadeerna meesha ka toosi hawsha diilayra waxaan rabaa inaan halka ka muujiyo inaan ballan qaado inaan midnimada iyo wadajirka Puntland aan ka shaqeeyo waxaan kaloo rabaa inaan ballan qaado inaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliya ka shaqeeyno waxaan rabnaa inaan Puntland hadaan nahay gogol Soomaaliyeed aan dhigno waxa lagu kala tabanayo halka ma rabo inaan ka sheego laakiin gogol baa noo fidsan madaxweynuhu uu hogaaminayo in la wada hadlo dalka maslaxadiisa laga shaqeeyo midnimadiisa laga shaqeeyo dhulkiisa iyo badiisa la difaaco maslaxada guud laga wada shaqeeyo dawladaha dariska iyo caalamkana sidoo hore u sheegay Soomaaliya heshiis oo dawladda adduunkana la heshiisa marka heshiiskaasna aan baadi goobno maalgelinta bangiga Salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada Islaamka waxa uu bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib ah ama bilaa ah